asalaamu calaykum soo dhowow daawade maanta waxaan doonayaa inaan kuu sharxo filim lagu magacaabo dangeros waana filim si xiise gaar ah balse intaanan gudagelin muuqaalka waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su-aal ka shaqaysay garaadkaaga iskuna daya inaad ku cabirato ra'yigaaga qaybta commentiga shil gaari xamuul ah sidoo kale faras iyo mooto waxa ay wada saarnaayeen hal wado in muddo ah kadib waxa ay imaanayaan goob isgoys ah saddexdooda waxa ay istaagayaan hal meel maadaama uu daaran yahay traffic lightka laakiin sikadiisa darawalkii xamuulku waxa uu u yeerinayaa hoonkii gaariga waxaana sababtay in hoonka aad uga argagaxo faraskii taasi oo keentay in isaguna uu bixiyo cod argagax leh darawalkii mootada oo aanan ka agdheerayn markii uu maqlo codka waxa uu mootada u dhaqaajinayaa hore taasi oo sababtay in uu shil la galo baawur kale oo wadada marayay haddaba yaa qaldan saddexdooda oo qaadaya mas-uuliyadda shilka waxaan rajeynayaa inaad fahantay kuna cabiri doonto ra'yigaaga qaybta commentiga aan u gudagalna muuqaalkeena filimka waxa uu ku bilaawanayaa ninkan oo lagu magacaabo del waxaa waraaq u soo diraya walaalkiisa ka weyn ka uu ka codsanayay inuu ugu yimaado jasiiradii ay kusoo wada koreen si ay in muddo ah kadib wada kulmaan isla maalinkii haddana waxa uu imaanayso waraaq kale laakiin uma wanaagsana sidii tii shalay oo kale waraaqdan waxaa ku xariiqan geerida walaalkiis yacni walaalkiisii ka codsanayay inay wada kulmaan in alaala markii uu akhriyo waraaqada waxaa galayso dareen iyo murugo balse sikano kadib waxa uu maqlayaa dhawaaqa albaabka gurigiisa oo la garaacayo markii uu furo waxa uu arkayaa shakhsi u muuqda mid aanan miir lahayn balse hore u ahaa dilaa iyo mid aad looga cabsado saacado kadib muuqaalka markaan waxaan ku aragnaa in koox ka mid a sirdoonka ay soo weerarayaan gurigii del markii ay yimaadaan gudaha guriga waxay ku arkayaan ninkii soo garaacaya albaabka oo ay ka muuqato jirdil saa'idna loo garaacay isla xilligaana qayb ka mid a askartii waxay goobta ka helayaan daawo uu isticmaalayay del una soo qoray dhakhtar dhinaca baara markii ay sii baaraan guriga waxa ay go'aansanayaan inay soo aadaan dhinaca dhakhtarkii del u qoray daawada si ay uga helaan xogo dheeraad ah si toosa ciidanku waxa ay u imaanayaan dhakhtarkii iyagoo weydiinaya inuu wax ka yaqaano del laakiin si degdega waxa uu ugu jawaabayaa inuusan waxba ka aqoonin wuxuuna usii sheegayaa haddii ay mar kale damcaan inay u yimaadaan ama ay waraystaan inay hore maxkamadda ugu soo qaataan waraaq u fasaxaysa laakiin dambi baaradii waxay u sheegaysaa in arrinta aysan gacantiisa ku jirin in alaale xilligii ay baaritaan ugu baahdaanna ay u imaan doonaan sidoo kale waxa ay dhegta ugu dhibcinaysaa in del ay soo xiri doonaan jeelkan uu ku cawi doono daawadiisa intaa kadibna dambi baaradii waxay ogaanaysaa in del walaalkiisii uu geeriyooday sidaa darteedna laga yaabo inuu aaday tuulada si uga qayb galo aaska walaalkiisa sida iska cadna muuqaalka markaan waxaan ku aragnaa del oo sii geliyay tuuladii uu kusoo barbaaray markii uu yimaado gudaha guriga waxa uu isla markiiba eegayaa meydka walaalkiisa intaa kadibna waxa uu u tagayaa hooyadiisa oo lagu magacaabo liin si uu ula hadlo laakiin waxaa ka muuqato cara zaa'id ah iyadoo aan la hadlin isaga ayay isaga tegaysaa goobtii uu joogay isla xilligan del waxa u imaanayso gabar si ay marka hore u dejiso laakiin kama helayso markiisa wax ficil ah way kasoo tagaysaa waxayna u imaanaysaa linda si ay uga dhaadhiciso inay la hadasho wiilkeeda laakiin maamada oo aad u caraysan waxa ay ku dhahaysaa ma ilooday waxa uu sameeyey mase ilooday wax dhacaya iyo mushkiladan haysataba inuu isaga ka dambeeyo dhinaca kale saaxiibadii del walaalkiisa oo jooga guriga waxay arkayaan del oo ku dhex wareegsanaya gudaha guriga waxay si hoose isku weydiinayaan inuu yahay del iyo in kale balse mid ka mid a waxa uu xaqiijinayaa inuu yahay del intaa kadibna del oo aad u jahwareersan waxa uu soo wacayaa dhakhtarkii waxa uu sheegayaa in amarka uu siiyey oo ahaa inuu aado reerkiisa ay ahayd mid qaldan soo dhoweyn fiican inuu kala kulmay iska daaya xitaa ay dhibsanayaan inay arkaan wejigiisa dhakhtarkii uu ku adkaysanaya ra'yigiisa waxa uu sheegayaa inuu sii joogteeyo udayada uu rabay in mar uu kula hadlo hooyadii dhinaca kale dembi baaradii waxay bilaabaysaa inay si fiican u ogaato del asal ahaantiisa iyo backgroundkiisa si ay uga hesho macluumaad badan halka del isaguna uu mar kale soo dhexgalayo qoyskiisa si uu u qanciyo waxa ay ku tilmaamayaan inuusan ahayn sidoo kalena fursad ay u siiyaan in isaga ay la hadlaan wuxuuna xitaa u sheegayaa in hadda uu la xiriiro dhakhtar xaaladiisana uu la socdo dhinaca kale hogaamiyihii tuulada markii uu ogaado in del aad loo raadinayo waxa uu imaanayaa gurigii waxa uu guriga kasoo galayaa qaybta dambe si aysan ugu baraarugin soo gelitaankiisa wax yar kadib waxa uu qoriga ku qabanayaa del isagoo u sheegaya in xogtiisa ay soo gaarsiiyeen booliska sidaa darteedna uu u xiriyo intaa kadib del markii la dhigo jeelka waxa uu wacayaa gabar lagu magacaabo zuzan waxa uu ku amrayaa inay sii ilaaliso del isagoo usii sheegaya haddii uu sameeyo wax dhaqdhaqaaq ah in ay fasax u tahay inay ka jebiso madaxa intaa kadib hogaamiyihii markuu usoo baxo banaanka waxa uu arkayaa koox aad u badan oo kasoo degaya doon isaga oo weli mooda booliskii waxa uu weydiinayaa sababta ay intaanoo ruux ugu yimaadeen iyadoo hal qof keliya ay wadanayaan balse hogaamiyihii waxaa ka kacaya boor yacni waxa uu ogaanayaa in raggan aysan ahayn boolis balse ay yihiin koox burcada oo wata nin lagu magacaabo kool isla markiiba waxa uu la soo baxayaa biskoolad isagoo uu ku amriyay inay dib ugu laabtaan tuulada laakiin nasiib daro mid ka mid a kooxii waxa uu ku dhufanayaa xabad si uu ugu aamusiyo del isla markii uu maqlo xabadda waxa uu dareemayaa in banaanka ay wax ka jirto waxa uu gabadhii ka codsanayaa inay u ogolaato inuu aado banaanka laakiin si cad way ka diidaysaa intaa kadib kooxdii kool waxay soo galayaan gudaha tuulada waxay isla bartamaha tuulada ku dilayaan nin isku dayay inuu hor istaago inay sii galaan tuulada intaa kadib waxa ay soo galayaan goobtii uu ku xirnaa isla markiiba waxa ay xaqiiqsanayaan in del uu joogo tuulada laakiin kool waxa uu saaxiibadiisii weydiinayaa waxa uu del halkan u yimaaday mid ka mid a raggiisa waxa uu ugu jawaabayaa in
del uu rabo inuu ka qayb galo aaska walaalkiisa. Si shoog ah waxa uu kooxdiisa ugu sheegayaa in qofkii soo dila del uu ku lahaan doono abaalmarin iyo lacag. dhanka kale del oo isaguna kasoo baxsaday gabadhii iyo jeelkiiba waxa uu kusoo laabanayaa guriga, isla markiiba waxa uu ku amriyaa inay wada xiraan dhammaan albaabada guriga, sidoo kalena ay wada damiyaan nalalka sidii uu rabayna. kooxdii Cole markii ay ag imaadaan gurigii waxa ay ka warhelayaan in albaabadu ay wada xiran yihiin. waxa ay bilaawayaan inay raadiyaan qido kale oo ay ku galaan gudaha guriga. intaa kadib del markan waxa uu imaanaysa hooyadiis, waxay ku amraysaa inuu isaga tago goobta si aysan kooxda ugu imaan, maadaama waxa kaliya ay doonayaan ay tahay inay isaga dilaan. laakiin taa bedelkeeda del hooyadiis waxa uu sheegayaa in aysan kooxda isagu u imaan balse ay doonayaan shay kale oo muhiim ah. wuxuuna u sii sheegayaa haddii aad rabtaan inaan baxo waa iska baxayaa. markii uu dhaqaaqo si uu u baxo waxaa ka daba imaanaysa dumaashidii, yacni gabadhii uu qabay walaalkiis. waxay weydiinaysaa in hadda uu u baxayo si dhab ah oo uu ka tagayo. waxa uu sheegayaa inuu baxayo balse marka hore ay u sheegto qaabkii uu ku dhintay walaalkiis iyo waxa ku dhacay. waxay u sheegaysaa inuu kasoo dhacay fooqa sare ee dabaqa isagoo xilligaa ka hayay howl. intaa markii uu maqlo del waxa uu kasoo baxayaa albaabka gadaale. waxyar kadibna faamilka waxa ay isweydiinayaan sidii ay burcada ugu sheegi lahaayeen in del uusan bahalkan imaanin. waxay daaqada kasoo dhiibayaan maro weyn oo ay ku qoran tahay halkan ma joogo del. dhinaca kale del isaguna markaan waxa uu imaanayaa xeebta. waxa uu arkayaa kooxda in ay doomahoodu ku raranayaan alaab. isla xilligaana waxaa arkaya mid ka mid ah kooxdii isagoo bilaawaya inuu soo ceersado kuna rida xabado, laakiin nasiib xumo waxa uu ku baxsanayaa doon. kadibna waxa uu isaga tegayaa goobtii oo idil. markii ay xaqiiqsadaan in markaan uu tuulada ka baxay del waxay sii wadanayaan hooshooda, laakiin del waxa uu tuulada kasoo galayaa dhinac kale iyagoon isaga dareemin. intaa kadibna waxa uu wacayaa dhakhtarkii. waxa uu dhakhtarkii u sheegayaa inuu kasoo baxay guriga kana soo tegay reerkiisa balse xaaladoodu aysan fiicnayn. dhakhtarkii oo hadalka usoo gaabinaya waxa uu sheegayaa inuu rumeeyo riyadiisa. dhinaca kale kooxdii Cole markaan waxa ay bilaawayaan inay qodaan dhulka iyagoo u muuqda kuwa ka raadinaya alaab muhiim ah. intaa kadibna Cole waxa uu imaanayaa qoyskii del isagoo u soo bandhigaya inay la galaan heshiis, sidoo kalena ay u diyaar garoobaan inay noqdaan dhinaciisa si uu ugu difaaco wax walbo. qoyskii isla markii waxa ay bilaawayaan inay tashadaan. waxay isku sheegayaan in Cole iyo kooxdiisaba ay halkan u imaanin inay dilaan del, sidoo kalena del isaguna isaga baxayba tuulada. laakiin hooyadii del markii ay ogaato in kooxda aysan u imaanin inay dilaan wiilkeeda, haddii aysan kooxda halkan u imaanin inay dilaan del, in ay doonayaan shay kale oo ka muhiimsan. isla xilligaana dembi baaradii iyaduna waxay saaxiibadeedu ku wargelinaysaa in maalinka xiga ay weerari doonaan tuulada si ay usoo qabtaan oo ay usoo xiraan del. kooxdii Cole iyaga oo sii wata hooshooda waxay markaan ku imaanayaan gurigii del, iyadoo oo mid ka mid ah kooxda uu ku amariyay inay dumiyaan albaabka hore ee guriga si ay usii wadaan hooshooda. laakiin del oo xilligaa kor ka eegaya waxa uu dareemayaa in kooxda markaan ay doonayaan inay galaan gudaha guriga, sidaa darteedna ay waajib ku tahay inuu sameeyo ficil. waxa uu imaanayaa qaybta gadaale ee gurigiisa si kooxdaanan u dareemin. ugu dambeynna waxa uu soo galayaa gudaha guriga. waxa uu dilayaa laba ka mid ah raggii Cole isagoo aanan sameynin wax dhaqdhaqaaq zaa'id ah, laakiin Cole isaguna waxa uu dareemayaa in gudaha ay wax ka qaldan yihiin maadaama raggii uu dirsaday ay aad uga soo daaheen. intaa kadib waxa uu imaanayaa iridda guriga balse wuxuuba ogaanayaa in del uu kusoo laabtay guriga isagoo aad u caraysan. waxa uu ka dhawaaqayaa banaanka, balse del markii uu imaado banaanka isla markiiba waxa ay isku furayaan rasaas. del isla markiiba waxa uu kusoo laabanayaa gudaha guriga, laakiin Cole kooxdiisu waxa uu sheegayaa in aysan qofna ka bixi karin tuulada. intaa kadibna waxa uu bilaawayaa sidii uu ku weerari lahaa qoyskii del. dhanka kale del waxa uu qoyskiisu u sheegayaa in ay jirto shay muhiim ah oo ay u yimaadeen Cole iyo saaxiibadii si ay u qaataan, laakiin qaar ka mid ah qoyska waxa ay imaanayaan god hoose oo isla guriga ah si ay isugu qariyaan. markii ay soo galaan gudaha godka waxay isla markiiba ku arkayaan sanduuqyo ay ka buuxaan dahab balse laga dhigay bir si aan loo ogaan. del isla markiiba waxa uu qoyskiisu u sheegayaa in tani ay tahay waxa kaliya ay doonayaan Cole iyo saaxiibadii. dhanka kale dembi baaradii iyo kooxdeedii oo kusoo wajahan waxa ay ogaanayaan in tuulada ay kaga horeeyaan koox burcada, waxayna saaxiibadeed u sheegaysaa inay taxadaraan. intaa kadibna Cole iyo saaxiibadii iyaguna waxay ogaanayaan godkii ay galeen del iyo qoyskiisa. waxay isla markiiba imaanayaan afaafka hore ee godka. markii ay is arkaan isaga iyo del waxay isku bilaawayaan rasaas. intii ay isku wadeen xabadu del waxa uu wacayaa dhakhtarkii. waxa uu sheegayaa xaaladiisa, balse dhakhtarkii markii uu ogaado in xaaladiisu ay u dhaxayso nolol iyo geeri waxa uu sheegayaa inuu sameeyo waxa uu ku badbaadin karo qoyskiisa. isla xilligaana mid ka mid ah raggii Cole waxa uu bilaawayaa inuu rasaas ku furo qoyskii del si uu u laayo dhammaantooda, halka Cole isaguna uu biskoolood ku qabanayo del hooyadiisa Linda isaga oo del ku amraya inuu u soo aruuriyo dhammaan dahabkii si uu u qaato. laakiin del si cad uu ka diidayaa, taa bedelkeedana waxa uu ku daadinayaa biyaha. isla waqtigiiba waxaa goobta soo galayso dembi baaradii iyadoo rabtay inay disho Cole. waxa uu kaga hormarayaa xabadda. markii ay dembi baaradii dhulka ku dhacdo waxa uu haddana isla markiiba biyaha ku tuurayaa del hooyadiisa Linda, laakiin nasiib wanaag waxa ay qabsanaysaa tiirkii ugu dambeeyay. isla xilligaana del waxa uu kusoo boodayaa Cole isaga oo ka tuuraya dabaqa oo idil ilaa ugu dambeyn uu dhinto Cole. intaa kadib del wuxuu soo badbaadinayaa hooyadiisa. ugu dambeynna filimka waxa uu soo dhammaanayaa del oo kasoo baxaya tuulada horena u siita qayb ka mid ah dahabkii. waxa uu qaab wicitaana kusii sagootinayaa dhakhtarkiisa isagoo u sheegaya in xaaladiisu ay wanaagsan tahay aadna u macsan
macsalaameynaya wuxuuna biyaha ku darayaa daawadii uu isagu soo qoray. waa markii uu meel ku hubsaday waxa uu yahay. haddaba saaxiibayaal waxaynu soo gaarnay gunaanudka mawduuceena maanta. waxaan rajeynayaa in muuqaalka aad ula dhacday lana wadaagi doonto ugu yaraan mid ka mid ah saaxiibada si isaguna uu u daawado. haddaba ha iloowin isku day jawaabta oo ku qor qaybta kommentiga. mahadsanid.